Qowmiyadda Rendile waa qowmiyad ka mid ah qowmiyadaha dega dalka Kenya. Waxaa la rumaysan yahay in markii hore ay ka soo socdaaleen aagaga harooyinka waaweyn ee ka yimaada dhanka Itoobiya ee gobolka waqooyi ee dalka Kenya. أنا محي دحيا ملي إبنتوكا عبرتي فرته Dhaqan ahaan waa dad reer guura ah oo noqda qaybaha kala duwan ee xoolaha. Geela guud ahaan waxaa lagu hayaa qaybta waqooyi ee gobolka ay ka degan yahay dalka Kenya oo ah dhul kayma ah, halka lo'dana lagu ilaaliyo qaybta koonfureed waa dhul aad saxaro ah. Intaa waxaa sii dheer, qowmiyaddan Rendilaha dhaqan ahaan waxa ay ku dhow yihiin qowmiyadda Soomaalida sida laga soo xigtay taariikha hore. Qabiilkan Rendile waxay ku hadlaan luqad aad u adag oo gooni ah oo ay erayo ka mid ah ay ka mid yihiin luqadda Soomaaliga. Dadka taariikhda wax ka qora in badan oo ka mid ah waxay sheegeen in dhaqan wadaag ay yihiin qowmiyaddan Rendile qowmiyadda Soomaalida. Taariikhyahanada qaarkood ayaa qaba in qowmiyaddan Rendile ay ka luntay qowmiyadda Soomaalida markii qaaraddan Afrika ay imaanayeen qowmiyadaha Kushitiga. Qabiilkan Rendile ayaa la sheegaa in muuqa guud ugu egyahay qowmiyadda Soomaalida, waana dad muuqaal ahaan dheer, midab ahaanna maarin ah, wejigoodana uu dhuuban yahay, timahoodana ay jilicsan yihiin. Dadkan waa dad xoolo dhaqato ah oo dhaqda 4 mis xoolaad ay dhaqdaan Soomaalida. Ayaa qaab ahaan waxay xoolo dhaqatada ay ka shabahan Soomaalida sida daraasad la sameeyay lagu ogaaday. Meelaha Soomaalida ay ka shabahan ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay dhaqashada xoolaha oo ay yihiin dad reer guura ah, aadna u dhaqda xoolaha isla markaasna xoolo jecel. Dhanka dhaqanka go'aamada masiiriga ah ee qowmiyaddan waxaa looga dambeeyaa odayaasha dhaqanka, waana calaamad kale oo muujinaysa meelaha ay Soomaalida iska shabahaan. Qowmiyaddan oo ka mid ah qowmiyadaha ku abtirsada Kushitiga sida Soomaalida, Oromada iyo Eritreanka ayaa haddana dadka baarayaasha ah waxa ay qabaan inay yihiin qowmiyad ka mid ah qowmiyadda Soomaalida. Dumarka qowmiyaddan ayaa ah kuwa dhaqanka ku adag, waxaana gabadha lagu barbaariyaa hidaha iyo dhaqanka qowmiyaddan ay leedahay. Gabdhaha markay yaryar yihiin waxaanu barnaa waxyaabaha astaamaha dhaqanka nooca sida samaynta waxyaabahan dunta ka samaysan oo ah waxyaabo qoorta lagu xirto. Waxyaabahani waa waxyaabo aad u qurux badan oo xitaa marka aynu yaryarayn noola xiri jiray, waana waxyaabo la naqshadeeyay oo qarniyo badan soo jiray. Carruurtani qowmiyadda Rendile ayaa waxaa lagu xiraa qoortooda waxyaabaha astaanta dhaqanka u ah sida kuusha, waxaana sidoo kale jira in xilliyada aroosyada lagu soo bandhigo ciyaaro shabaha ciyaaraha dhaqanka Soomaalidu leedahay. wax soo saarka qowmiyadda Rendilaha ay sameeyaan waxaa loo iibgeeyaa dalalka Shiinaha iyo Hindiya, waxayna ka mid yihiin qowmiyadaha wax soo saarka dhaqamiga ku wanaagsan, kuwaas oo dalxiisayaal badan u daawasho tagaan gobolka ay dadkani ku nool yihiin ee waqooyiga dalka Kenya.